xulka qaranka Soomaaliya ayaa gaaray South Africa iyagoo lugta labaad ee isreereebka koobka qaramada qaaradda Afrika 2023 kula ciyaari doona dalka Eswatini ay guuldaro 3-0 kala kulmeen lugtii koowaad ee ka dhacday dalka Tanzania. Soomaaliya ayaana haysato rajo aan aad u weynayn markii loo eego natiijada kulankii hore, laakiin kubadda cagta wax walba waa macquul. Abel Gigli oo aan ku soo bilaaban kulankii hore ayaa la filayaa inuu kulankan ku soo bilowdo, waana daafac la tabay kulankii hore. Abel ayaa ahaa ninkii goolka ka dhaliyay Oman, kulankaas oo ahaa kulan ay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan. Sidoo kale waxaa kulanka la filayaa inuu ku soo bilaaban doono Cabdisamed oo ka mid ahaa ciyaartoyda xulka, waxaana loo arkaa inuu xal u noqon doono qadka dhexe. Soo laabashada labadaas ciyaaryahan iyo isbedelo badan oo macalinka sameyn doono ayaa ah waxa la sugayo, iyadoo la filayo in xulka Soomaaliya ay soo bandhigaan ciyaar ka duwan midii hore. دور ciyaartoy ayaa la dhihi karay in maxaa ku raadayay impact bay sameyn kareen hadii aan xanad wala heli lahayn oo kale impact uu sameyn lahaa individual impact waxa kale oo impact sameyn lahaa hadii la heli lahaa ciyaaryahan dhaxda ka dheela ciyaaryahanadii Soomaaliya joogay sida Cabdi Karim Qubay oo kale impact uu sameyn lahaa aan good at least waxaan good performance hadii la yiraahdo in xul kubadooda la fiirsan karo oo sida at least qaybtii dambe u dheeleen cohesion leh gadaal ka soo bilaabay identity leh hore tagay baan waxa ku raadinaa